barafna ka dhacaynin hawaadanu beelatahay ilaah baa nagu basharay meel barwaaqa taal bisinka noo dhaha inuu how baasku naga dhex baxo bisinka noo dhaha inuu how baasku naga dhex baxo dawladana bilacta rabbiyow baraarayeel xafladan oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyada Soomaaliyeed ee wadanka Belgiumka oo kaashanaysa safaaradda wadankani ayaa waxa ka soo qayb galay jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool qaaradda Yurub sida jaaliyada Ingiriiska iyo waliba jaaliyada Netherlands ayadoo dadweynaha xafladda ka soo qayb galeen ay si aad ugu riyaaqeen horumarka dawladda Soomaaliya ay ku tilaabsatay xafladan ayaa jaaliyadaha waxa kala soo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud kaasi oo u sharxay waxyaabaha horumarka leh ee Soomaaliya ka gaartay dhinaca ammaanka iyo waxbarashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waxa uu ku dheeraaday dhinaca ka hadalka dhinaca ammaanka iyo waliba guud ahaan xaaladii ugu dambeysay ee dalka ka jirta ayadoo dadkii ka soo qayb galay xafladan ay si aada khudbada madaxweynaha ay u soo dhaweeyeen oo amni waara lagu keeni karo ma jiraan qabnaa sanadihii la soo dhaafo dhan waad ogtihiin inta jeer oo dad Soomaaliyeed oo aad iyo aad u niyadsan oo wanaagga jecel ay intay is abaabuleen ay u istaageen amniga inay sugaan yani ma waarin dadkaasi inkastoo niyadoodu ay aad iyo aad u fiicnaan sababta ugu weyn waxay ahayday xayndaabka dawladnimada ka banaankeeda waxba kuma qabsoomi karaan wax kasta oo xayndaabka dawladnimada banaankeeda ku qabsoomaay waxay noqonaa wixii reer hebel ama wixii koox hebel iyo wax la mid ah marka xaqiiqadu waxay tahay nidaamka dawladnimada dhaxdiisa in aan wax ku qabanno oo aan wax ku hagaajino marka taasi marka aasaas waxa uu ah hay'ado dhisan oo nidaamkoodii iyo shuruucdoodii iyo qaab dhismeedkoodii leh oo shaqaynaya in la helo dawladani waxaan bilowna markaan nimaday in aan hay-adihii dawladda ee amniga sugayay in aan maxaan ku iraahday dhismahoodii aan ku mashquulno runtii meel fiican ayay maraysaa ciidamadeena waa tii hadda wasiirku ka dhawaajinayay markii ugu horeysay dawladda Soomaaliya inay mishaar siiso maraan mikrofoonka la dhax qaadnay dadkii ka soo qayb galay xafladda ayaa waxa ay ka hadleen dareenkooda ku aadan ka soo qaybgalka xafladani ay ka soo qayb galeen iyo waliba inay madaxweynaha kula kulmaan wadanka madaxweynaha oo muxuu ahaa aanu halkan ku qaabilno waxaana ka dhacay meeshan waxa aad iyo aad u wanaagsan madaxweynaheennii oon aragnay hawshuu wadanka u qabtoon aragnay waxyaabaha horumar kale oo noo sheegay aad ayaan ugu hambalyeynay waanu ku faraxsannahay inaan hawshaas galno waa maasantahay sidoo kale waxaa nala jooga dadkii ayagana ka soo qayb galay xafladan isla markaasna si weyn madaxweynaha u soo dhaweeyay bal ka waran xafladan sida madaxweynaha u soo dhaweeysan caaw magacayga marka hore waa Cabdullaahi Taliil waxaan deganahay wadanka Belgium gaar ahaan caasimadda Brussels arrintan caawa ka dhacday halkan waa mid aan la koobi karin halkaasna waxaad ka arkaysaa dadweynaha inay u baahan yihiin dawlad in mataqaana ay helaan gaar ahaan dadkeena qurbaha jooga inaan ka soo qayb galo waana ku faraxsanahay caawa khudbada oo noo akhriyay aad iyo aad aan ugu soo dhaweynay dalka Belgium anagoo ka nimid muxuu ahay wadanka Holland Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh horta marka ugu horeysa hambalyo waxa leeyahay Soomaaliya hambalyo Ilaahay ha dhiso anoo ka soo jeeda jaaliyada reer Djibouti ee wadanka Belgium gaar ahaan Brussels waxa Cabdullaahi Maxamed Xuseen Taajirow telefishinka qaranka Belgium